اوكي idriso arintan oo leeyahay intii laga soo saaray immigration loo gudbiyay arinta judge-ka ku saabsan ataga judge-ka kale loo idriso laakiin dhigayta waa maqlay soo sharxaysan si fiican baa qaato grant asylum 2020 waxaad ku qanacweydo macnaheedu mooshin waska abiil oo kale waxa xirey 2024 dadka laga soo wareejiyay immigration-ka oo loo wareejiyay ilaa haddana wax dhaqaaqa ma lahan haddiina ku qanacsanen kiiskaas abiil ka qaato camal faraha farahad waa haysanaa waxaad dhan waa haysanaa ugu dhaxay marka hore lawyerkii saasaan ma ka hadlay arintaas waxa idin rabay maxaan sameeyo hadda ila gudboon oo yaani on iga baahan yahay waxa legal tariiqna xareeyo madawaan waxa dhalinyarada markuu dhahay lawyerkoodii dhahay arinta anaga immigration banad xaqana lagu soo wareejiyay judge ku dhahay kiiska ku waraysan abiil ka qaada camal لو شو كلا سبعين وعينه بيس ليه لو شو كلا سبعين كرو مركي يقول ما يصير فيرين هاي بروسيس واحد ضب بروسيس خلاص هاي ما لكن طبعا استارس حقا كوسو ماشي استارس كفيرين يسو هوست هذا بروسيس ان تايم بقول هذا ماشي اللي جريسو oo aad geliso deydka xareysay wuxuu kuu soo saarayaa kusi dare sometimes waxa fiican kiisaskaaga inta badan detail badan ma sii bixinayo waxyaalaha qaar waxaa jirta detail ka galay inay ku dhameystira waa boqolkiiba majority markii ugu dambeysay hadda fiirinayay asylum-ku wuxuu qaadanayay idris sidee 10 bilood ilaa 20 bilood marka hadii ay dhacdo marka xilliga inuu ka badanayo kiiska aniga parol baan ahay affirmative baan ahay waxa loo diri karaa officer baan hoos imaadaan wax la dhaho verification baa loo diri karaa immigration la dhahayo intaan ka hadlayay yar oo aniga isku mid ahayn same officer hoos imaanayni processing time waxa loo dhaafay maxkamadda loo soo geliyo in expedite la igu sameeyo hadda wax iga baahnayn I think kiiska la dhaqaajiyo ayaa muddo 30 cashaar way kugu soo jawaabay laakiin marka ugu horeysa iska hubi qofka officer-ga oo anaga hoostigeena in la gaariyo affirmative tahay oo tahay one officer baad hoostigeeda qof inaad iska sugto asaga go'aan ka gaari karo markuu kiiskaada ama ku horeero ama fahmi waayo waa ku gudbi karaa asaga ku gudbinaya ma sha Allah maskax ma joogtaa maskax maxkamadda ku soo gelinaya maxkamadda go'aan ka gaaraysa waa maasanta ما صنت هاي حتى فيرنا كيسك حولها هاي إيري بس كمبليت وايد 21 مانث لو ترى اسكول تقني 21 مانث كي هذا كدب معنا ولي what's the reason maxaa dhacay like oo lagu soo wareejiyay inta oo loo keenay fiiriyo waxba iska bedelaya kiiska oo marka waxa dhacday qof kasta ee officer wuxuu bilaabay inuu dhashay 10 bilood camal immigration oo hoos tahay qofka yes waa run waayo dibna wuu isbedel hadana immigration officer hoos tagay 20 bilood hadda sino kiiskaada soo wareejiyo xaq u soo wareejiyo si dheeraanaya wali waa si dheeraanaya because waa ogtiina lagu soo gelinaya maxkamadda tagaysa hadda marka maxkamadda lagu soo geliyo maxkamadda tagta wali la abruuf waxaad markaad xaq u leedahay inaad ka doodo dhax karta aniga kuma qancin bahasha waxaan rabaa hoosta lagu soo geliyo kuma qancin dhax karta dood waa ka dooda karta oo balamahoodii hadda laga kansalay loo soo geliyay officer-giga hoos jooga wali officer-kii Chicago ka iman lahaa biil loo waayay hadda saas ay u soo wiilkiis same aan ahayn waxa laga dhigay immigration hearing-kiisu taga doona sidaas jirto macnaha waxaan howlahan waxay la socdaan markii iyagu waxay update systemka ay wiil badan loo soo geliyay intaan hadda joogaa inuu sii dheeraado waxa laga yaabaa hadii laga baxo in wax dhan uu collapse garoobo la dhaho koola isoo kale kulligaan marka hore waxaan badan aan nolol soo diri jirin waxaan ahaynay every 6 bilood ka bacdi USS tiri jirnay oo report garay jirnay ama every 1 year dad basi baan ahayn marka laakiin hadda maalmaha waxa soo batay wiilashii badan loo soo gelin hayo arintan tooska aan fahamtay yani lacag ma ka baxayso ha okay marka waa ka fiikniyo su'aal kale idin weydiiyay idin hoos aan ku soo qorina arkiis mugi ma jiraan wax mar dhow state to state u safray oo wiilasha kamid ah wax state to state inuu u safray diyaarad ma jiraan oo diyaarad ku safray
arrimahan say u bilowdeen January February capacity ku xiranta marka aniga haddaan kuu shaqaynaya ها ويل بهمين لو تركنا دور هاي كور capacity انتان case logtayga ku xiranta case وينو logtayga شيغين badan yahay هاي كاليفورنيا shaqaalahaygu uu yar yahay loo sheegay low suit kasta samee ma samayn kara waa ولي بلمي كلها هاي correct صح Okay. ديار بيرعين هذا dadka waa ka ku soo qorayaan ayadaan badan laba qof ku soo qortay haya lagu soo qoray marka way joogtaa ku soo waxaan weydiina qofka hadduu interview maro oo jawaabna weli la siinin meeqa qaadan kartaa marka taa wax dhibaato ma laha definitely kuwaas waxay ku xirantahay case indefinitely okay ni waa mahadsan aad u mahadsan tahay sida aad maaragtay noo daadihinayso barnaamijkaagan oo fiican yahay marka insha Allah kulli mees qeyb ku jira Allah noo siiyo qeyrka ku jira Allah na aad way bay ku jiraan qaarkood asafi laakiin iska taxadiro waxa waa case by case oo hadii dad qaar la dhaafay maybe dad in lagu dhigo waa laga yaabaa soo iska badanaa adigu be cautious basically so staad sheegaysa gabadha qaraabo yihiin uuna yar yahay ilmahan idinku aad kafaalada qaadeen oo biilayseen aad hayseen oo iskuul aad mooshin ka qabsada anaga haynay anaga biilaynay qaraabaasa u nahay qualify and dependent inuu noqono shuruudihiina waa kuwaas waa ka soo baxay intaa may noqonaysaa ama waxbaa laga tegay ama waxbaa mataqaana lagu daray ma dhici kartaa marka intaa inaad buuxin karin ma dhici kartaa inay ku raadiyaan dambi yes ma dhici kartaa evidence cusub baa lahaaya oo ma dhici kartaa in ay la xiriiraan IRS-ta mooshinka wuxuu ka dhigan yahay oo u sheegaan claim garaysa dependentigaas inuunan ahayn ayaa waxaa la rabaa in wax dheeraada lagu daro IRS-tuna ortay samayso ay kaala noqoto lacagta ay siiyeen markaas waad garan kartaa dembi weyn ma sii aha xagga immigrationka laakiin way dhici kartaa in caqabada kaaga dhigan insha Allah taala ilaahay ka cadaas mistake noocaas oo xagga sharciga haduu ka dhacay mooshinkaas la xiriiraya si loo soo ama evidence cusub ah mataqaana la keenay ama judge-ka ama si khaldan u fahmay maya taas hadii ay sameeyaan macnaha systemkaygu dib mu keenismaano marka maadaama iyaga information laga keenay baa loo saxayaa hadduu saa yahay marka khalad dhacay lagu saxayaa mooshinka waa ka daba tigitay maya isku address nama isku burin ma khaladkaas la sameeyay u fahantay sidana laga waday ama evidence macsuba jira wax details ma jirin qaab noocaas oo kale mooshinka marka la xariir judge ku akhriyo then case-ka sida lawyer-ku rabo ama uu ku raacaya ama uu ka diidaya sababtoo ah inta badan qofka waxaa la dhahaa maxkamad uu ka wareegi karaayo immigration wuu u wareegi karaa laakiin immigration inuu kasoo laabto maxkamad kasoo laabto xoogaa waa yar adag tahay marka sidaad sheegaysa waa sax oo dee kolley khalad unbaa dhacay marka moosinku khaladkaanu ku saabsan yahan umaynaya anu kule marka generally area motion horta wax uu judge-ka mataqaanaa hayay oo wax lagu darayo la saxayo weeyaan ama mistake baa dhacay ama new evidence imaaday ama judge-ka waa si khaldan u fahmay wixii marka wixii waa la saxaya marka waa